وهجاج وقدام بينتينا بالهدان إجنو حنونك كورونا فيروس ولا شيء يو إن ولد جيد قاليه الدنيا ده وحاسد وين وطابتين وحكم ده بالليلي لنعيد dulimadyada iyo diyaaradaha maalin walba in ka badan dhowr boqol oo kun oo dulimaad ay caalamka isaga kala gooshi jiray dulimadyadaasi intoodii badnayd imika dhulkay fadhiyaan haddaba dulimadyadaasi markii ay rakaab waayeen ee dadkii ay dhulkooda cagaha dhigeen ayaa dhibaatada ka dhalatay waxa ay noqotay halkii diyaaradaha laftooda la dhigi lahaa maadaama dadkii raaci lahaa weeyaan ay dhulkooda cagaha dhigeen eerboodo fara badan oo caalamka oo ay ka mid yihiin kuwa ugu waaweyn oo gegida diyaaradaha ee magaalada Dubai oo waqtiyada qaarkood lagu tilmaamay inay ka mid tahay amaba ay tahay gegida diyaaradaha ee ugu saxmadda badan caalamka ama ugu shaqada badan iyo gegida diyaaradaha ee Heathrow ee magaalada London oo labadooda lagu tilmaamo inay isu yihiin darajada koowaad iyo talabaad marka ay noqoto heerka dulimadyada ayaa horta Dubai gebigeedii la xidhay Dubai waxa waliba u raaca sharikada Emirates oo laga leeyahay imaaradda Dubai waxa weeye sharikada ugu weyn ee caalamka ee rakaabka u kala qaada meelaha fog u kala gooshaya waxay caan ka tahay koono walba caalamka diyaaradaas imika hawsheedu waxay ku soo koobantay in diyaaradaha la nadiifiyo inta badan oo marka ay dadka tusaan in diyaaradahoodu ay ka nabad qabaan faafitaanka xanuunka coronavirus diyaaradda idin muuqata waa diyaaradaha caanka ee inta badan ay ku duulaan sharikada Emirates ee loo yaqaano A380 waa nooca Airbus ah waxay qaadaa ilaa 500 oo qof haddaba 500 iska daaye markii rakaabkii tiradoodii soo dhintay ayaa imika diyaaradihii gebigoodiiba iyagana safaradoodii aad loo dhimay dabadeedna cilad xoog leh waxay ka dhalatay diyaaradaha halkii la dhigi lahaa waxa imika la isku hayaa oo erbado fara badan oo caalamka ay qaateen halkii diyaaradu ay ka haadi jireen waa dhabaa diyaaradu ay ka haadaan in baarkin looga dhigo diyaaradihii maadaama diyaaradaha haadayaaba aanay jirin oo sidaa ay arkaysaan diyaaradihii ay hoganayaan waddanka isutaga imaaraadka carabta oo kaliya si ay uga qiyaas qaadataan inta duulimaadii adduunyada mari jirtay maalin walba ilaa 2,000 oo diyaaradood baa soo fadhiisan jiray 2,000 way ka kici jireen 2,000 badankoodu waa ilaa 1,000 iyo dheeraad Dubai oo kaliya gaar u ahaayeen imika waa haba sheegin airportkii waa arkaysaan Dubai sida uu yahay airportkaasoo markaad dhex marayso sida uu garan karo qof kasta oo airportka Dubai hore u dhex maray aad mararka qaarkood moodaysay suuqyadan waaweyn ee caalamka ee moolasha loo yaqaano ee laga adeegto imika xitaa shaqaalihii baan lagu arkaynin waa taxadar dhinacaasi coronaviruska iyo faafitaankiisa airportadii caalamka qaar fara badan oo la mid ah ayaa haddaba la qaba airportka Dubai oo iyaguna sida u wada haawanaya sharikada Qantas la yiraahdo ee Australia laga leeyahay ayaa iyaguna diyaaradahoodii fadhiisiyay nooc kasto ay yihiinba dabadeedna dalkaasi waxa uu sheegay in dadka kaliya u soo gali kara ay yihiin dadka waddankaasi u dhashay tallaabadaasi qaar la midana waxa qaaday wadamo fara badan oo kale oo caalamka ah oo iyaguna ka taxadaraya in xanuunkaasi aanu ku soo faafin arintani waxa ay dhibaato xoog leh ku noqotay sharikadihii diyaaradaha ee caalamka waxaana imika khubarada dhaqaaluhu ay qiyaasayaan in balaayiin dollar ay ku kici doonto khasaarahana waxaba ka sii daran baa la leeyahay waxaan la hubin goorta duulimadyadii ay dib u bilaabmayaan waxa kaloo aan la hubin baa la yidhi goorta kalsoonidii dadku ay soo noqon doonto ee xanuunka la xakamayn doono ee dadkii aadka u dhoofi jiray ay haddana dhoofi doonaan arrimahaasoo dhammi waa gacan uur ku jirta ilaahay khayr ha ka dhigo ilaahay ha inaga nabadgeliyo